dadka reer mudug waxay qayb ka yihiin dadka reer Puntland dhaqan uma lihin horgalnimo dhaqan uma lihin in Puntland leeyo adeegsado maalintii shaqada laga joojiyay ciidamadaas uu madaxda ka yahay in diyaano wixii ka dambeeyay gaalkacyo qofna laguma dilin madaxna lama jabin waligoodna hal qof ay soo qabteen oo dadka madaxa jabiyay ba lama bahayaba kuwii la soo qabtayna waa daba socdaan taa macnaheedu maxay tahay in diyaano shaqadii ka joojiyay Cali Muuse wuxuu nooga joojiyay Saylor maxaa loogu wareejiyay Puntland iyo shaqadii uga joojiyay Jamaal Faarax Aadan ninkii dilay iyo kuwa la mid ah in shaqada looga joojiyay saraakiisha oo looga xumaado ammaanka aan ka wada shaqeynayna iyo xaq jirka aan la dirirayna looga wada xumaado waxa weey waa nasiib darro dadka reer mudug waxay qayb ka yihiin dadka reer Puntland dhaqan uma lihin horgalnimo dhaqan uma lihin in Puntland leeyo adeegsado mar hadaad badaba socotay shabaabkii dadka laayay horta isku mabaadiina ma nihin mana wada shaqeyn karo